garoonka diyaaradaha Ismaaciil Mire International Airport ee ku yaala Buuhoodle waxaa galinkii hore ee maanta ka dhoofay wafdi badan oo ka socda labada gole ee maamulka Khaatumo. Wafdigan waxaa hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo Maxamed Sheekh Umar Xasan, waxaana ka mid ahaa wasiirka amniga Khaatumo Kayse Cabdi Yuusuf, aqoonyahan Baayir Mahdi oo ka mid ah qurbo-joogta gobolka Cayn, wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatumo Maxamuud Ismaaciil Shabac iyo waliba xubno kale oo ka tirsan maamulka Khaatumo. wafdigan garoonka waxaa ku sugantii xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Khaatumo maamulka golaha deegaanka Buuhoodle, waxaana isna garoonka goobjoog ahaa madaxweynaha maamulka Khaatumo State Professor Cali Khaliif Galeer oo si wafdiga ku sugantii garoonka diyaaradaha ee magaalada tan Buuhoodle. madaxweynaha Galeer ayaa wafdigaas ka hor intaan ka doonan Buuhoodle waxaa warkaa kula dardaarmay oo kulan kula qaatay wafdigan inuu ka qayb galay wada hadalka maamulka Khaatumo iyo Somaliland, waxaana wararka ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo oo isagoo ka warbixiyay ujeedada safarka, waxaana gudoomiyaha baarlamaanka uu sheegay in magaalada Addis Ababa 16 bishan ka furmi doono wajigii labaad ee wada hadalka Somaliland iyo Khaatumo, waxaana ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo khudbadiisii. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 12aad 2016 waxaan diyaar u nahay garoonka Buuhoodle International Airport Ismaaciil Mire aanu kaga dhoofaynaa wafdi aan hogaaminayo wasiiro iyo qurbo-joog aqoon-yahano qurbo-joogaba leh oo aanu ugu aadayno magaalada Addis Ababa wada hadaladii labada maamul ee Somaliland iyo Khaatumo ay uga bilaabmayso Addis Ababa 17 bisha sida qorshu yahay. ummadda reer Khaatumo waxaan u sheegaynaa in aanu masiirkooda iyo hankooda aanan wax ceeba u geysan doonin, wax karaama iyo sharaf oo aanu yeelan mooyaan. waxaan ballan qaadaynaa inaan si wanaagsan oo macquul ah oo danta labada gobol iyo labada ummadoodba ku jirto oo nabadgelyada geeska Afrika ay ku jirto inaanu ugu xaajeyn doono annagoo mar walba ilaalinayna sharafta iyo karaamada ummadda reer Khaatumo iyo tan ummadda reer Soomaaliyeed iyo tan geeska Afrikaba. waxay ka mid noqon doontaa hawlaha aan isleenahay mustaqbalka geeska Afrika deganaanshiisa iyo nabadgelyadiisa waxa laga qabto. waxaan diyaar u nahay in aan nabadgelyada ka shaqeyno iyo horumarka bulshooyinka geeska Afrika jooga xaajoodkaasna isagoo bilow ah. waxaan ummadda reer Khaatumo leenahay ku kalsoonaada oo ducada iyo muxuu ahaa karaamadaba nagu soo raaciya inaanu idinku xaajeyno ama idinku xaaji qaadno ama ku soo xaajeysano si sharaftiina iyo karaamadiina ku jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.